muddooyinkii ugu dambeeyay horumar ballaaran ay ku talaabsanaysay degmada Boocame ee gobolka Sool. ururka horumarinta degmada Boocame oo kamid ah ururada maxalliga ee ka jira degmada Boocame waxa uu maanta dib u habeyn iyo dayactir ballaaran ku sameeyay wadada isku xidha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo degmada Boocame. ololahan maanta uu ka sameeyay wadada isku xidha magaalada Laascaanood iyo degmada Boocame ururka horumarinta ee markii magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano BDO oo garab ka helaya qaar kamid ah gaadiidleyda deegaanka iyadoo ugu horreyn halkaasi uu ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi mudane Axmed Muuse Yuusuf ayaa halkaasi uu faahfaahin ballaaran ka bixiyay waxqabadka ururkaasi. anigoo ah ururka horumarinta Boocame loo soo gaabiyo BDO anigoo ah gudoomiyaha ururka horumarinta Boocame shaqadan aan maanta haynaa waa shaqo kamid ah shaqooyinka ururka iyagu uu qabto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan degmada Boocame iyo nawaaxigeeda. maanta wadada aanu ka shaqeynano waa wadada halbowlaha u ah degmada Boocame xagga safarada iyo xagga isku socodka dadweynaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwa ka yimaada gobolada iyo kuwa ka yimaada tuulooyinka dhowdhow. sidaad aragtaan wadadadan waa wadada ka timaada dhanka magaalada Laascaanood baabuurta ka timaada gobolada waa wadada kaliya ay soo maraan. waxaan ugu kalifay waxa weeye maadaama uu soo dhow yahay gugii lana sugayo xilli roobaadkiina uu soo dhawaaday waxaan ugu kaliftay in dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhici jiray awal aaga kan wadadan ay ka xun tahay oo burburka baaxadda uu ka muuqdo. waxaanu ku dhiirinay annagoo ah ururka horumarinta Boocame una taagan mar walba inaanu wax ka qabanno deegaanka iyaga intaanu awood u leenahay. waxay taasi nagu kaliftay inaanu si dhab ah oo xaqiiqo ah uga shaqeyno annagoo isku duuban wiilal iyo gabdhaba dhammaan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay ururka horumarinta Boocame xubnihiisa kala duwan. saaka waxaanu si diyaar ah ugu heeganahay hawshan aanu qabanayno. meelaha kale aanu wax ka qabanno waxaa kamid ah sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee xaafadaha degmada Boocame annagoo ka shaqeyna qaashin aruurinta kalena shaqeyna ururada kale ee ku wajahan. sidoo kale waxaanu wax ka qabanaa waxbarashada qaybaheeda kala duwan oo aanu furnay iskuulo bilaash ah iyadoo aan cidna naga caawin. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Axmed Cismaan Karaaf oo ah mulkiilaha ugu deeqay gaadiidka maanta ka shaqeynaya halkaasi. waxaana sidoo kale halkaasi ka hadashay Hooysiido Cabdilaahi Gure iyo qaar kamid ah shacab weynaha ku dhaqan degmada Boocame ee gobolka Sool. waxaana dhammaan dadweynaha halkaasi ka hadlay ay baaq ballaaran u direen qurbo joogta deegaanka isla markaana ay ugu baaqeen in ay gacan weyn ka geystaan horumarka ballaaran ee ka socda degmada Boocame. ururka horumarinta degmada Boocame oo hawlgal ka bilaabay wadada dheer ee u baxda magaalada Laascaanood kana baxda degmada Boocame taasoo aan isaga ka bilaabeen waxqabadka idin muuqanaya oo volunteeriya oo iska wax u qabsaa tabartoodu ay iska gaaban tahay. anagu waxaan ugu deeqnay gawaaridii iska rogooyinkii tabarta aad bay u kooban tahay. waxaan u sheegaynaa dadka u dhashay degmada Boocame dal iyo dibadba inay arkaan sida looga shaqeynayo volunteer dalkooda looga shaqeynayo dadka inay dhiirigeliyaan. anigoo kamid ah ururada ka jira deegaanka Boocame hooyooyinka ururka halgan maxaan ku yiraahdaa waxaan u mahad celinayaa ururka horumarinta Boocame hawsha ay hayaan ee dhalinyarada baan taageersannahay soo dhaweynaynaa ma sha Allah nu leenahay annana waxaanu doonaynaa inaanu ka qayb qaadano waxaanu doonaynaa qurba joogta iyo hay'adaha caalamka meel walba inaan ka qayb qaato dalkooda deegaankooda iyagoo kaashanaya muruqooda iyo maalkooda una heelan siday wax uga qaban lahaayeen uguna shaqaysan lahaayeen wadanimadooda. waan ku soo dhaweynayaa shaqada muuqata ee habboon oo ay ka wadaan deegaankooda anigoo ku hadlaya afka degmada afka shacabka afka odayaasha. waan ku soo dhaweynaya waxqabadka ballaaran oo ay u muujiyeen deegaankooda iyo dadkoodaba. annagoo degmada Boocame waxaanu indhawey ilaa 2 bilood ugu jirnay nadaafada deegaanka iyo dhirta iyo daaqa xaarufinta baanu ugu jirnay annagoo cid naga caawino annagoo aanu iskay wax u qabsanay. waxaanu samaysanaa jidadkii biyaha marka roobku doo baabuurtu gali jirtay ayaanu samaysanaa. haweenka dhalinyarada ururka horumarinta ee degmada Boocame haweenka ururada hooyooyinka dhalinyarada kale oo magaalada joogta dhammaan waxaanu iska wax ugu qabsan uga shaqaysanaa degmadayada oo aan cid nagu taakulayn oo hay'ad nagu taakulayn oo cid nagu taakulayn inaanu gacantayada iyo xoogga iyo xoolaha iyo maalkayga ku shaqaysano oo qashinka iskaga gurno oo jidadka ku nadaamsano oo dhagax iska nadaamino ayaanu ku talagalnay haddii marka la ka dhigo. deesaas waxaan u baaqayaa dhammaan wixii qurba joogta ah oo na arkayo na daawanaya inay naga soo caawiyaan oo hawshaas aanan ka daalin annaguna iyaguna naga soo caawiyaan wixii wax qabanaya wixii wax tara saasaan idin kordhoonayna.